لما لامه أمنه لبدا مرحوم عدي دشي من شيء ما بهال هو سادلي ما تشين بادلي مصدنا باخد عاي والله العظيم إنما هذا دنتي حرق السلطان كان نجح قرطو دي بيدنتين haddii inuu damiir nool yahay haddii inuu ay damqasha jirto 48 saacadood xukuumaddu ay qabsatay haddii jawaabteeda ay nagu siisay xarig taladu gacanteena ku jirtaa waa inaan kaga jawaabnaa reerkii koowaad reerka yaga ay ku noqonaysaa taariikh iyo cambaar reerkii meydku iyagoo u yaala oo aan cidna loo soo qaban cidna loo xidhin haddana loogu daro madax dhaqameedkooda in la xidhaa bay noqonaysaa marka waxaan leenahay dawladda bal miyir qabka ku soo noqda meydka halka yaala wixii dilina waa la idinka doonayaa labadan qof bahal hoosaa dilay noo sheega xukuumadda waxa leenahay xukuumadii ka horeeyay baa eeday xarigan intaasaan u sheegay suldaan qabiilo markaa suldaan qabiilo ma intaas dawladdu ku xidhay markaa runta noo sheegtay miyidaad si dawladdu sinu ogsoonahay 20kii bisha 7dii fiidnimo magaalada Hargeysa gaar ahaan bartamaha suuqa Hargeysa waxa lagu dilay laba marxuumo aanu ehel lahay ugu horreyn horta waxaan u dirayaa tacsi labadii qoys ee labada marxuum ay maxay tuli ka geeriyoodeen mid kamid ah hooyadii kaligiiba dhashay waliba way dhalaay abtimaan ugu toosnaa mid ka labaadna qadar buu haylahaa naxariisto qadar furre nin dhalinyaro jaar baanu hayn da'da imka 18 jirka noqonaysa ayuu ahaa wiil yaro secondary school ku jira hadda soo barbaaraya nolosha macaankeeda iyo imka ka u tahay gacan ka xaq daran baa dishay ilaa maanta xukuumaddu iyo dhammaan laamihii amnigu labada marxuum cidii dishay ma sheegin ma bahal hoosaa dilay ma jin baa dilay misadana baa ku dhacay maanta bishu waa 22 waxa laga joogaa in ka badan 48 saacadood meel laba laguma sheegin dooci dareen iyadoo taasi jirto laba meeydi yaalaan ayaa maanta waxa lagu daray in suldaan qabiilana la xidho suldaan qabiile wuxuu sheegay ilaa inta la soo la helayo nimanka marxuumiinta labada wiilalada cidii dishay inaan aasin horena way u dhacday rag baa rag lugta loogu xidhay iyadoo caynka tahay baa suldaankiina xarig loogu diray umaanu fadhiyin waxaan u fadhinay in dadka labada marxuum cidii dishay la sheego ee in suldaanka xarigiisa loogu diro waxaan u fadhinay ma yahayn waanu ka xunnahay xukuumaddana hal baanu leenahay waxaanu leenahay amniga iyo ilaalintiisa iyo maxay tolay dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland daryeelkooda idinka la idin doorto mas'uul ah ee waxay hay'ad miyir qab ku eegtaane ma yahayn inaad uga sii dirtaan xariga suldaan qabiilana ninka waxaan aaminsanay suldaanka ah naguma fududa yaan loo arkin niyar uu nagu xulsi aad buu noogu xulsi qaali buu nagu yahay maanta uu dalacayo waxba loo taray mana xidhnaan doono ee taarta ogsoonaada waxna lama yeelino waxba loo taray xidigaa loo xidhay inta iyada halkan taagan iyo in ka badan oo jirtaana waxa weeyaa suldaanka yagii labada marxuum iyo tacsidaasina anagay noo taalay halkii meydka sidii loo aasi lahaa ninka diray sidii loo sheegi lahaa xaaladda miyir qab loogu soo celin lahaa laga wada hadli lahaa xarigaas lagu daray kaasina waa baasiin marka waxaan leenahay dawladda bal miyir qabka ku soo noqda meydka halka yaala wixii dilina waa la idinka doonayaa labadan qof bahal hoosaa dilay noo sheega waxa maanta aanu qaadan weynay ee fajaciisa iyo ama kaag nagu noqotay reeraha marka mashkuulad noocaasi ka dhacday ee cid laga dilo waxaanu arki jiray dabdamis qaboojin loola tago iyo dejin xaalkooda la dejiyo laakiin maanta tiiba waxa nagaga daran in raggii madax dhaqameedka ahaa ee uu suldaan qabiilka ka kowga ahaa ee xaajada odayadeeda ahaa ee kuwii dabdamiskeeda ka shaqayn lahaa ee odaytinimadeeda ka shaqayn lahaa ah oo maanta isaguna xidhan yahay saakana naloo sheegayba in rumaan loo jaray arrinkaasi waa dhafoor taabasho waxa weeye waxaanay noqonaysaa reerkii koowaad reerka yaga ay ku noqonaysaa taariikh iyo cambaar reerkii meydku iyagoo u yaala oo aan cidna loo soo qaban cidna loo xidhin haddana loogu daro madax dhaqameedkooda in la xidhaa bay noqonaysaa arrin aanu qaadan karro aqbali karro yeeli karrana maba aha kow waxaan soo jeedinayaa dawladdana waxaan leeyahay cid baa gebigeedaba waxaad mooddaa in baraha bulshada laga xukumo waa jilicsan tihiinaysaad keeya inta lagu yidhaahdo ayaa meeshii adayga looga baahnaana meelaan ahayn ayay isku adkaysa meeshii jileeca looga baahnaa ee madax qaboojinta looga baahnaa Soomaalidu waxay tidhaahdaa meesha xinjiri ku daataan xabbaa lagu daadiyaa bay Soomaalidu tidhaahdaa
meeshii ay ahayd in dadka iyo eheladaa laguna mashquulay in ciddaana la soo qabto ciddana madax qaboojin loo sameeyo inamaa ku yidhi malaa kuwa annaga naga jooga iyo kuwa meel kale jooga kuwa yihiin kala garan maayee isadkeeya baa lagu yidhi isadkeyntii waxay noqotay xidha ciddii hadashaba suldaan qabiille waa suldaan sidaa uu sheegay walaalkay nuuraddiin miisaan culus oo qiimo nagu leh yaanu la fududaanin xukuumadda baan leeyahay xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa wallaahi alcadiim inamada dhintay xadhigga suldaanka naga gaxo goortoodii bay dhinteen wixii laga yeelanaya arrinka laga yeelaya geeridaya shilkaa dhacayna raggii rabbiba wuu leeyahay laakiin waxaanu qaban weynay oo dhafoor taabasho ah oo aad moodaysa in qiyamka yaga iyo annagana lagu eegayo bal falcelintaanu samayno aad mooddo inay nagu tahay halxidhaale sidaannu uga falcelinaa arrinkaasi siduu noqdo waxa weeye xadhigga suldaanka dil baa dhacay dilkaa dhacay wuxuu ka dhacay goob fagaara ah goobtaa fagaara ee uu ka dhacay bulshaa ku sugnayd ciidanna way ku sugnaayeen se la sheegayo waxa ayaan darro nasiib darro ah oo isweydiin mudan aaway heegankii guud aaway ciidankii xuuraanku aaway heegankii sare ee isaguna naynayku shaqadoodii iyagoo ahayd in iyaga lala xisaabtamo taa beddelkeedu waxay keentay oo la xidho dhibaata markay dhacdo dee cid baa mas-uuliyaddeeda ku weyda xilkeedii shaqadeeda ku weyda in dhaqankaygii lagu beddelo xadhiggii waxaan ogeyn beejka ciidanka booliska mayd noo yaalla 24 saacadood oo aan warbixin laga bixin qaabkii u dhacay iyo ciddii dishay toona inay laba maqsin oo cidlo ah ay xadhigga ka jireen inay beejkooga soo geliyeen isla saacaddii dilku dhacay saacaddeedu xalay ahayd waan arkay saaka muuqaal dambe basaadoo la soo geliyay beejka ciidanka booliska taasi waxay ku tusaysaa in shacabka dhiigoodu xukuumadda jirta aanay la ahaynba wax weyn sababtoo ah dee xukuumaddan meesha joogta iyadaaba dhiig ku timidba qofkuna markuu dhiig ku yimaado dee dhiig daataa dhiiguma arko kolley xukuumaddu way talisay taladeediiyo go'aankeedina waanu aragnay dadka deegaankayga mid baa la gudboon taladu maanta gacantiinay ku jirtaa miyid baa inoo yaalla xadhig suldaan baa inoo yaalla waxa weeye dowladnimadu ma hadde maalinkayga anigu saan doono aan yeelo adiguna saan jecel aan kugu taliyo haddii inamada deegaanka ah ee ka soo jeeda deegaankaasi mas-uuliyiinta ay maanta ku taliyeen in meydkayguna halkaa igu jiro suldaankaygina la xidho cidna aanay ka hadli karin maanta anaa ka hadlaayo ka doobinaya hilbahana in la dul fadhiyaa anigu waxaan u arkaa dembi dunida maanta waa inaynu tusnaa hooyo iyo aabba cashuur bixiyo ah oo cashuurta lagaga qaado amni baad ku helaysaa inaanay maanta muddo 48 saacadood aanay u haynin jawaab xukuumaddiina aanay jawaab ka siinin ubadkoogii ciddii dishay sababtii loo dilay iyo waxay u dhinteen taa waxaaba u dheerba jilaafo iyo inay dowladdii la kala faqdo dadkii meydku u yaallay anigu hal mid baan ku talin lahaa taladeedu waxa weeye haddii maanta dowladdu 48 saacadood oo dee dembiga intaa leeg dhacay ay ku bad jawaabtay xadhig annagana jawaabteedii ficilkaygu waxa weeye inaanay deegaankayga isku socodkii bulsho isku socodkii dowladnimo aanay ka shaqaynin haddii taasi dhacdo maanta dadka deegaankaygow suldaankiinoo xabsi ku jira meydna talaagadda inoo yaallo oo aydaan wax tallaabaa qaadin taariikhda ay xusi doontaa hadduu hore cigaalu yidhi ciise muse waa gobanimadii maanta halkaydii la maraysa waad arkaysaa war qofka bini'aadanka ahayd dee dowladnimadu maaha in lagu dul socdo qofka bini'aadanka waxa weeye war dowladnimada waxaynu samaysannay inaynu ku kala baxno inaynu ku heshiinno 48 saacadood xukuumaddaa jirtay maanta waxay iga qancin kari lahaday meydkayga ciddii dishay iyo cidda loo hayo wax nasiib darro ah in aanay ilaa alaankaa xukuumaddu aanay qofna u haynin dembigaa dhacay si tiifiyada ay la soo istaageen shirqool buu ahaa inankayga ma dowladdaa dishay yaa dilay maxaa loo dilay muxuu dhintay waxaan qabaa maanta khadar iyo suldaan hadday nool yihiin falkaa dhacay inay qaar innaga inaga midi ku dhici lahaayeen inay ka dhiidhiyi lahaayeen se maanta khadar iyo inagama mudno suldaan inaynu aamusnaanno gacmaha aynu laabanno suldaankii inoo hadlayno maanta xabsi ku jiro haddii inuun damiir nool yahay haddii inuun ay damqasha jirto 48 saacadood ee xukuumaddu ay qabsatay haddii jawaabteeda ay nagu siisay xadhig taladu gacanteennii ku jirtaa waa inaynu kaga jawaabnaa waxaa maanta ayaan darro ah in magaalada hargeysa bartankeedii muwaadiniintii jamhuuriyadda somalilan u dhashay in lagu samaynayo in lagu toogto
laga aqbali maayo xukuumadda lagana siisan maayo ilaa iminka ma hayno oo meydkii tallaagadu ku jiraa wax laga aqbali karayo maaha taa beddelkeeda waxaa maanta lagu daray in la xidho salaadiintii u hadashay kana hadashay arrinka marxuumiinta ee taalla in xadhig lagu daro iyo tacaddi maaha waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyo laamaha khusaysaba cid kasta oo hawshaa ku lug laba in sida ugu dhaqsaha badan leh loo soo daayo suldaanka uguna dhaqsaha badan leh maanta loo sii daayo suldaanka waayo haddii meydkii uu ka hadlay in xadhig iyo caburin lagu abaalgudo ama la yidhaahdo ma hadli kartaan oo carjuuq dheh xukuumadda waxaan leenahay xukuumadii kaa horreeyey baa eeday xadhiggani xal maaha si ay bulshada iyo dadka deegaankiina ay lagu caburinaya inay hadlaan markaa waxaan leeyahay in si degdega oo bilaa turxaana bilaa shuruuda loo soo daayo suldaanka le in labada wiil ee dhintay uu madaxweynuhu u tacsiidinayo qof hindiya jooga iyada oo 2 qof oo 2 kiiloomitir u jira ay agtiisa ku dhimanayeen waxa ayaan darro ah in 24 saacadood ka bacdi madaxweynuhu uu taasi markii ay dadku dhagaha ay ugu celceliyeen madaxweyne maxaad iyo beejajkii madaxtooyada lagu celceliyay madaxweyne maxaa soo tacsiyeen laaday oo 24 saacadood ka bacdi uu soo tacsideeyay waxaan leeyahay madaxweyne dadka iyo tacsiyuhu yaanay ku kala duwanaani dadkaaga shacabkaana sidaad hadda ku maamulaysaa waxa weeye waa mid aan ahayn sifihii madaxweyne lagu yaqaanay haddaba waxaan ku talinayaa anuu horta suldaan qabiile horta xadhiggiisa horta jawaabteeda dawladdu sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ilaahay idhaahdo horta way arkaysaa haddii sida ugu dhaqsiyaha badan xorriyaddiisa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii uu ka heli waayo ta labaad waxa weeye suldaan qabiile waxa lagu xidhay waa meydka lama aasi karo annagaana hadda la meydkiisa cid aasisaa ma jirto ilaa ninkii dilka geystay gacanta lagu soo dhigo haddii kalena de dawladdu run buu sheegay suldaan qabiile de lama aasayo ilaa ninkii la dilay de la soo qabto waa xaq dee wax intaasaanu sheegay suldaan qabiilo markaa suldaan qabiile ma intaasay dawladdu ku xidhay markaa runtaa noo sheegtay miyidaa disay dawladdu